الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وإن شاء الله بالله كتابك التحفة السنية. التحفة السنية وحا إسكاله الشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد المصري شيخاس أيا إسكاله وقول شيء كن يصدح بقول طبعا يسيديت هجريات مركيهات ويو مصر كل شيء marka caalim luqada carabiga ah iyo furuun badan oo kala duwan ku taqaqusay ayuu ahaa wuxuuna markii dambe ahaa ra'iiska lajnada fatwada ee masaajidka Azhar ama jaamacadda Azhar waxa weeyaan lajnada fatwada ra'iiskooda ayuu ahaa markii oo lagu soo daray xafladii loo sameeyay culimadii ka hadashay waxa kamid ah sheekh la dhihi jiray Maxamed ibn Ali an-Najjar markuu ka hadlayo wuxuu yiri asagoo sharaxaya macnaha shiiqan ama se dadka barayo taariifinaya wuxuu yiri laqad qila fi dabari markii laga hadlayo waxa la yiri innahu kana kal qari alladhi la ya'rifu illa al-Qur'an dii laga fiiriyo dhanka quraanka sida uu yaqaan wuxuu la mid ahaa qaari quraanka kaliya ku taqabsan wax kale aqoon إلا قفك فن مركو كتقصو فنك وو إثباتيا واسوغيا مركا واحد مداهو يري الطباري مركا لفيريو waxa weeyaan xagga quraanka sidoo ku ahaa qaari quraanka ku taqaqusay oo aan wax kale garanayn saas ayaad moodaa ayaa la yiri wa kal muhaddith alladhi la ya'rifu illa al hadith wuxuu yiri tabari marka la fiiriyo xagga xadiiska sidoo ku ahaa waxaad moodaa muhaddith oo xadiiska ku taqaqusay oo aan fanni kale garayn illa fanni kale haduu garana fannigaanu dhibaya oo laba fanni markay isii waa isdhibayaan laakiin hal fanni taqaqus markuu yahay aad ayuu fannigaas u sugaya marka xadiiska sidoo u yaqeen dabari marka la fiiriyana waxaad moodaa halka fanni oo uu ku taqaqusay inuu ahaa wa kal faqih alladhi la ya'rifu illa al fiqhiga xaqiisa marka fiiriyo dabari waxaad moodaa inuu fiqhiga kaliya ku taqaqusay oo san fanni kale ba aqoon sidaas mooda sida uu fiqiga u sugay oo u isbaatiyay qof kaligiis u tafarruqay oo kaligiis bartay aad moodaa yiri naxwada marka la fiiriyo dabari waxaad moodaa yiri wa kan nahwi alladhi la ya'rifu illa an-nahwa naxwadana inuu kaligiis ku taqawusay aad moodaa yiri oo aan fannigaas kaliya u tafarruqay marka la fiiriyo xagga xisaabta waxaad moodaa wa kal hasib alladhi la ya'rifu illa al-hisab waxa isleedahay yiri asaga dhanba aqoontiis waa un xisaabtaba مركز حلو وكذلك يقال في الشيخ محي الدين عبد الحميد وغيري الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ساسد مدهور والضبري وكلاد مدهور فن كسته مركز السوق هذا واحد سلاده يرو فن كانوا كتقصي وقنتي صار انا فن كاس ساسد سلاده يرو مركز ضبري وحويان اياد مدهور مركز الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وحدنتي كون يصدح بقول يسقاشن يصدح حجريد مركيه الكتب aad u badan u leeyahay oo aad u wada faa'iido badan ayuu leeyahay marka kitaabkan aan aqrinayno at-tuhfatu saniya sheekhaas ayaa iskale wuxuuna ku sharaxaya ajrumiyada ayuu ku sharaxaya oo bilow u ah ama seefuraha u ah ama albaabka laga galo naxwada marka naxwaduna waa carabiga waxa weeyaan albaabka laga galo ama se furaheesi ama se dariiqi lagu fahmi lahaa arabiyaduna waa luqada ilaahay u doortay inuu ku soo dejiyo kitaabkiisa aziiska ah waana luqadii uu ilaahay u doortay nabiga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee khaatamul anbiya inuu ku hadlo saas darteed qof kasta oo muslim ah ayay muhiim tahay inuu barto sababtoo ah diinka qofka muslimka waa al-kitaab wa sunna kitaabki iyo sunnadii labadiina waa carabi qofkii aan marka labadaas fahmaynin oo waxa weeyaan diinkiisi fahmi ma qofkan luqa carabiya fahmayna kitaab iyo sunna ma fahmaayo saas darteed ay daruuri ugu tahay
oo muhiim ugu tahay qofku inuu barto marka barashada ajruumiyada ama naxwada dhanba waa shay aad u fudud oo basiid ah funuunta la bartana waa fanniga ugu fudud la dhihi karaa laakiin marka hore qofka waxaad moodaa culays inuu ka dareemayo marka laba shay culayskaas uu iska saaran yahay marka koobaad usluubka ama qaabka loo gudbinayo oo macalinka raba inuu wax baro uu u gudbinayo waana qaabka badanaaba qaabka Soomaalidu ay u aqriyaan oo waxa weeyaan in ajruumiyada marka la aqrina lagu soo raro nuquushi kawaakibka iyo tii qatriga loogu tagi lahaa iyo tii loogu tagi lahaa alifiyat ibn Malik iyo balti loogu tagi lahaa sharh ibn Aqil iyo khudariga xashiyadiisi ayaa lagu soo rarin ajruumiyo qofkiyo marka bilow ah qaacidadiina min bidayatiha ila nihayatiha hal mar lagu soo raray waxa weyn tamadu xanuun iska dhaqaajin inta fahmi waay marka asbaabta sababka ugu weyn oo ugu horeeya oo ajruumi la fahmi waayo ama naxwala la fahmi waayo waxa weeyaan waxa iskale asaatidada ama macallimiinta aqrinay waana sidaan u aqri jirnay ilaahay naga cafiyo waxaan islaan dadka u dadaalo qawaacid badan u sheega illa dadkiina waa niyad jabayeen waa baabeen marka taas marka waa mid koobaad waxa weeyaan marka sababkaas hadii meesha uu ka baxo qofka kitaabka loo aqrinayo kaliya la fahamsiiyo waa fudayd tan labaadna waxa weeyaan عزيمة حما أو قفك وحوي هدي وحو وح إسكا بصيلة يهين ده هبرها فرق ku qaadala qof walbo iska sidala ma garad marka waa shay muhiim oo qofkii waxa weeyaan inuu niyad iyo aziimo u leeyahay shaygan inuu fahmo oo uu xifdiyo waxa weeyaan ajruumigu kamid ma ahan cilmiga inta la laqbaysto saas looga faa'iido kamid ma ahan waa inuu qofku xifdiyo waa aalad waxa la yiraahdaa qalabka aad rabto inaad ku shaqeyto مثلا waxa weeyaan beer ayaad rabtaa inaad qalabkii looga shaqeeyo soo gadato yaambo iyo garweyn iyo faas iyo gudin iyo wixii lagu faylahay soo gadato لازم beerti hadaad rabto inaad xoga qabato waa inaad garabka soo saarato la aado laakiin hadaad inta gurigii dhigato aad tiraahdo beertii wax ka soo qabanaa waxa weeyaan waxba kama qaban kartid soo ma ahan ama si kale hadaan u dhigno hubka waxa loogu talagalay cadowga in lagu la dagaalamo inta guriga dhigato aad tiraahdo guriga yaala cadowga inaad fara banaan aad waxba kama qaban kartid naxwadana waxa loogu talagalay kitaabkii sunnada in lagu fahmo marka waa inaad sidato marka kitaabkii sunnada la aadaydo maskaxda ay kugu jiro laakiin kitaab naxwadi igu yaala markaasan kitaabkii sunnadiina ku fahma wax isqaba kara ma aha marka dariiqa kale tooxo in qofku inuu u fahmo kitaab la laqbaysto waxa weeyaan asaga waxa weeyaan caqabad ku noqon waa inuu xifdiyo oo maskaxda ku haysto marka si daraadii kitaabkan waa in la xifdiyo insha Allah marka waxaan sameeynaynaa kitaabka وأن لقبيننا ما كبحينه ولو واحد ضروري أن نقضى ما هني كما بحينه لا قاعدة كلا كسر هرمين ولا واحد كلا ملوك كيرمين أنت يرتا واحد متنجي أجروميره هي شرح وصاري محمد محي الدين عبد الحميد أنتاس إلا فهمه مهم قفكم مركو فهمه قواعد كلا سجى وتجاي ماشي كتالو لكن دو سن فهمين ملك الأسي صعمة تنوع كل بطانة marka insha Allah taasna waa inaan fahanno aan ka bilaabayna waxa weeyaan al muqaddimat meesha uu yiri maxamed muhiddin abdul hamid oo taariifaadka uga hadlayo al muqaddimat hadi tanu al muqaddimat wa muqaddimat kuwi oo maqsuudka ka horeeyay weeye تعريف النحو نحو دا قيحديس نحو maxaa la yiraahdaa نحو in la qeexo oo la cadeeyo taas oo laga hadlaa موضوعه هو كهذا هرت أسقدم نحوي هالكو كهذا بحاره كهذا موضوعه كهذا وحويان عقيده موضوعه كهذا هالكي كهذا النحو وإن أيضا اللي فهمه إلا موضوع هذا الصفر يسطي وإن فهمت ماشو كهذا ماشو كهذا سجى شيء جدون ثمرته حيث الفائدة اللي جهلا مرها اللي جهلا ما محي ولا جرانا مركل أبرته بل مرها اللي جرانا يقول الفائدة يحييه واضعه يادك ينحو فني كان هذا خرسيده يادجيه مسكا خرسيده نقون قف دجيه حكم الشارع فيه ان لا برتا حكمه حتى قفك غدغلايو حكمكيس محويه او محيتا ان لا برتا حكم الشارع فيه waxaan ka badnay nisbatuhu nisbadiisu maxay tahay sayawada keenay wuxuu yiri at-ta'rif qihitan kalimatu nahw nahwa kalimada
تطلق والله إطلاقا ولا سيداية في اللغة العربية اللغة العربية على عدة معاني دور معنى إطلاقا ولو سيداية معناها دور معنى الله استعماله منها وحا كميدا الجهة دينا عاص كوفر قلبيت انت ما يلقى عندك كنت تحرتي نحو كذا جهداس نهبل marka macnahaas waa loo isticmaalaa nahwa bimaana aljiha taqul waxa leedahay dhahabtu waxan aaday nahwa fulan hebel xaqiisan aad dhankaasan aad marka macnahaas waa loo adeegsaday jihata dhinaciisa way wa minha macaanida loo adeegsaday nahwa waxa kamida ashibhu ekaansho iyo wal mithlu la mid noqosho shaygaanu la mid yahay waa loo adeegsadaa macnahaas waa macna labaad soo ma jeedid taqul waxa leedahay muhammad nahwa ali la mid yahay waa asagoo kale macnahaasna waa loo adeegsadaa shibhuhu waa u eg yahay waay wa mithluhu waa asagoo kale wa tudlaqu waa la idlaaqa kalimatu nahwa kelimada fi istilaahi culamada oo waxa weyn nahwiinta heshiiska ay ku heshiin istilaah waxa la wixii koox ku heshiido istilaah hadal maqasho wixii koox ku heshiido way hadii nahwuleed ku heshiido waa istilaah nahwuleed hadii fuqaha ku heshiido waa istilaah fuqaha hadii ku heshiyaan mutakallimiinta waa istilaah متكلمين وحي كوحو كويشيدو على اصطلاح دد مقشو marka في اصطلاح العلماء نحو waxa la yiraahdaa على العلم ان اقول لو يشو اقول ان لو يشو بالقواعد قواعد التي قواعد سو يعرف لو غرانا بها قواعد احكام اواخر الكلمات كلموينك آخريالكود أحكامتا كتعلقدا كلموينك العربية عربية لو نسبي كلموينك عربية آخركود أحكامتا كتعلقدا قواعد لغو برتان نحوالي هذا ومحيط أحكامتا كتعلقدا كلموينك آخركود في حال تركيبها كلموينك عربية مركا ليسارو معها مركا مدمديهين علي إيه عمر إيه ذهب إيه مركا مدمديهين معها ومركا ليسارو بل واحد صارتا ذهب إيه علي اسكوكين ذهب علي خلاص والله سالي سو مجيد علي مركا اخر كده ياداس ugu dambayda harakada shaqalka saaran meeshaas weey meesha uu naxwa ka hadla marka fi xaalad tarkiibaha marka la saaro xaaladeeda markaas kelimooyinka carabiga aakhirkooda waxa ku tacalluqa aan naxwa ka hadla oo maxay waxa ku tacalluqa min al-i'raab oo i'raab كو والبناء بناء isaga noo keenin doon ka hor degi meeyno ka hormaray meeyno i'raab iyo binaa xalayr halkan tan ku sharaxno baabkeeda marka la tago xal afraa iyo wama yatabic dalika arrinkaas wixii raaca marka kaliya maxamshaadka maanta la rabaa waa maxay inaad fahanto war naxwi wuxuu ka hadlaa dil wareen ka jawaabi karto naxwi wuxuu ka hadlaa waa in ilmi loo yeesho qawaacid waxa la yiraahdaa waxa weeyaan shay ku koobaya macaani badan ودهدو وحوين ميزان كدغتو اد ku miisaamato way qaacidada marka qawaacid in la barta leeyahay nahwi qawaacidaas oo lagu garto ahkaamta ku tacalluqda kelimooyinka carabiga aakhirkooda marka kelimooyinka carabiga la saaro ahkaamtaas oo ah kelimadan aakhirkeedu ma mu'raba oo mu'raba saaran mise kelimada aakhirkeedu bina saaran waa mabni iyo ma yatabic dalika wixii raaca horta nahwi halkaas uu ka hadla nahwi dhaharana kama hadlo عقيدنا كما هضلو فقه كما هضلو waxa uu ka hadlaa waa kelimo carabiga kelmadan aakhirkeeda waliba dhexdana kama hadlo awalkana kama hadlo kelmada awalkeeda kama hadlo baab fanni kala raayo ku barato fanni kala looga hadlo oo sarfi leeyahay dhexda waxa weeyaan looga hadlo nahwi marka taas waa inaad ogaato الموضوع اسمه halkee وموضوع علم النحو علم النحو موضوع عيسى الكلمات العربية كلمات عربية من جهة البحث حق باردة عن أحوالها حالته هذا البار المذكورة للصوشيال موضوع هذا وهو متى حتى عن كسو هذا المي كمان غير اصطلاح هذا وهو محي كلمات عربية هالبارة وهو أحواش حق آخر كده ومتى هذا الكسو هذا كلمات عربية وكهذا حق آخرك معربا مصور مبني الثمرات ميرها لغا غراناي فائده علم النحو ليه هذا براتو ومحي ميرها كوسو غايود غراناي وثمرات تعلم علم النحو علمك النحو ده برشديسه فائده ميرها على وجه فائده لغا فائده صيانه اللسان وعربك ان لغا إلاليو
عن الخطأ إنه كوجف في الكلام العربي كلام العربي مدة كودا فائدة فإذا أقول إذا تلي دوام حي مركات كلمات عربية كل واقو إن عربها وكوجفي أو كلمات صحة كل واقو وأنا وين قيمة له هذا الكاج حتى فيري إنه هذا القيمة له اللي دقيستن نقضه كو حكم إذا نخلص كائن هذا لكن ده أنت سوي استكتو خطبة نقراها تري كلام عربي وحكي شيء إسلام مركات كل كلمات كل واقو خطأت كل واقو qofka ugu horeeyo ku maqlaayo carabiga yaqaana waxa macnaha sheegayda qaladkan aad sheegtay niyad jabka uu ka niyad jabay macnuhu la seega markii kubad qaadka ku dhawacday waaba niyad jabay meeshu wuxuu ogaaday inaan cilmi oolin kadib intuu la murugsan yahay qaladkaagi hadaad faa'iido sheegtay xataa faa'iido saasi ku seen marka waxa weeyaan laga faa'iidi maayo kalaamkaaga hadaad khada uu ku jiro marka waxa weeyaan arabkaaga ka ilaashan inaad ku gafto luqada carabiga marka faa'iidadiisu maxay noqotay siyaanatul lisaan arabka in laga ilaaliyo anil khada in lagu gafo fil kalaam al-arabi kalaam al-arabiga wa hal faa'iida kale iyo wa fahmu quraanka in la fahmo quraanka al-karim wa quraanka karimka waxa weeye in la fahmo quraanki waa luqad carabiga soo deg haddaba marka luqad carabiga aqooni luqad carabiyana macaanideeda ama se culumta ku tacalluqda cilmiga ugu muhiimsan waa nahw 12 faniya ku tacalluqda 12 ka fani waxa ugu faa'iido badan waa naxwada marka hadaadan aqoonin quraanka fahmid quraanka hadaadan fahmin diinkaaga hadaadan fahmin adduunyo aakhir waa qasaar marka faa'iidada laga helayo waxa weeyaan waa inaad quraanka fahanto iyo wal hadith nabawi hadithka nabiga loo nisbeeyay sallallahu alayhi wasallam hadithka nabigana waxa weeyaan inaad fahamto naxwadii ku xiranta illa nabigu carabi ku hadlayay صلى الله عليه وسلم فهم إن فهمته فهم كاسو صحيحا معناها لما داد متها إن أنا وحبا وين بك فهمي فهم شبان بإن فهمته خلطان أو سي خلطان فهمته ضد النحو دي أقول لبداس خطرت وجرته الذين لبدي إن فهمته وهي فائدته هما لبدودو أصل الشريعة شريعة أصل كده labadii aad ku fahmee oo shariicada asalkeeda shariicada al-islaamiyada islaamka loo nisbeeyay wa alayhima labadaas waa labadee quraanka iyo xadiidka wa alayhima labadaas korkooda ayuuna madaaruha shariicada wareegeedu hada waxay ku wareegayday ku dhisan tahay waa labadaas kama baxdo shariicada islaamka labadaas nisbadiis waa halkeen loo tiirin wa huwa nahwadu min al-ulum al-arabiyya ulumta arabiga kamidii ulumta arabiga ayuu kamidii واضعه يا دجيه ugu horeeyay ila arabta markii ugu horeeyay waxa weeyaan kalaamka arabiga way ku hadlaayeen asagoo saxan oo aan naxwadiisu saxan tahay sarfigiisu saxan yahay balaaqadiisu saxan tahay waxa weeyaan qawaacidkiisa usuushiisu saxan tahay oo qalad lahayn ay ku hadlaayeen laakiin qawaacid in loo sameeyo oo la yiraahdo faa'il wa marfu' mubtada wa marfu' مفعول به ومنصوب إن قواعد ساس الله سمي يا أجوري والمشهور سيدا عنك أن أول واضع كي أجوري يودجي أن أول واضع كي دجي أجوري لعلم النحو علم النحوها هو أبو الأسود الدؤلي أبو الأسود الدؤلي أيا دجي نكاسا دجي سيدا أجو عنصن بأمر أمير المؤمنين نكاس تابعيغا ايا دجيي بامر امير المؤمنين امر اوسيون كدجي علي بن ابي طالب رضي الله عنهما وحويان ان علي بن ابي طالب امري او يري دجي نكاس marka دجيي حكم شارع فيه وحويان قفك براناي حكمس محوي مواجبه والسنه ما احكام تسوامحه حكم شارعي قفك جدجلي حكم كيس فيه علم النحو إيو وتعلمه برشديسو فرض وواجب ومن فروض الكفاية اسكا كافين تفرض يالك إذا كميدا فرض كواتا لبع الله قيبيا فرض العين قفك استشي لقربه وهذه أمطران أي لي مادان قفك كتاك أسو كدن بابا إيو فرض الكفاية فرض ليرا ووام محي هذه قبل سميان قبل كلا إيغا أقفلانو ككافينا
marka naxwada barashadiisu wuxuu ku leeyahay fardul kifaa'i way asalahan oo waa in laga helo ummadda muslimka ah dad yaqaan oo sugaya ila diinkoodii fahamkiisa ku xiran si diintii loo xifdiyo marka dad yaqaan waa in laga helo caalim yaqaan laga helo hadii kale waa wada dambaabay magaalo kasta waa in laga helo nin caalim ku ah naxwadi dadka muslimka ah degan waa fardul kifaa'i وربما وعلى ركعة تعيّن إنه عينوه تعلمه برشديس على واحد قف إنه فرض العين كن قدر ورع كرتا فصار ومركا نقضه فرض العين عليه كل كيس فرض العين كن نقضه نوارع كرتا كوني أسباب جوني وكينيدا أسباب جوني وكينيدا إنه قف جوني قف كي وقربا إنه وحويان قرآن كي يصنع دي معنوه دي وبرتو إنه ترجمه إنه وحوي إنه كتاب كي الصنع دي ودح قالوا ربع معاني دودي وحويا لازم انه برطو مركا لازم انه برطو wax badan hadii kale kama keeni karo ama asbaaba kale oo keeni karo inuu farto ku noqdo bismillaahir rahmaanir rahiim awal bisinkan ka bilaabi jireen naxwada markaasaan bisinka dhijina baada xal la yiraahdo baada kay ku tacalluq xal la yiraahdo waxaas waa wixii naxwada ka iriyay sababtoo ah annagoon xaraf jaar baran oon ficil baran oon majruur baran oo haddaan halkan i'raab ka bilowno waxa weeyaan alfaadan carabiga oon daldalayno waxaan darar iyo dhibaatayn qofka ku keenimi soo ma aadan garan waa inaan bismillaahir rahmaanir rahiim gudubno horta aan dhex galno marka qawaa'idii wax laga fahmo i'raab ka dambeeyo marka bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah ilaahi magaciisa ayaan ku bilaabaa kitaabka allah arrahmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arrahiimi naxariisiisa gaarsiiya ciduu doono adoomadiisa kamid intaas misinka ugu badbayno soo ma adan gara qaala al-musannif wuxuu yiri ajrumi shayqi alifay قال المصنف wuxuu yiri musannifka shayqi alifay waxa weyn kitaabka ajrumiyada وغيري قال مصنف وغيري وهو مصنف كسي كو شيغا عيدو يحيى ابو عبد الله واي كنيديس ابو عبد الله ليراده كنيديس ابو عبد الله ليراده مغعيسا waxa ليراده محمد ابن داوود الصنهاجي المعروف بابن اجرومي المولود وعلى في سنة 72 و600 لحبقل تضباطا يلابو هجريدو markay ahayd la dhalay والمتوفى في سنة 23 و700 وحونا دنتي تضبقل لباتن يا صدح هجريدو markay من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى شيخاس marka كتابك متنغا او اجروميدا شيخاس الفي قال وحور شيخاس الكلام هبل هو اللفظ ودواه وشيء لو دواقو لفظيغاسو المركب ليس سارو مركب كاسو المفيد وفائدينايه بالوضع عربنا وحكو فائدينايه كلام waxa laga bilaabo maadaama la baran hadal carabi horta hadal xal la yiraahdo kalaam xal la yiraahdo naxwoolaydu maxay u yaqaaniin kalaam u fiirso wuxuu ku yiri matniga fiiri wuxuu ku yiri kalaam waxa la yiraahdo ko wixii laga helo afar shay هو اللفظ wax lagu dhawaaqay waa inuu horta wax lagu dhawaaqay waa inuu wixii aan lagu dhawaaqin kalaam lama yiraahdo ko al murakkab mid laysi saaray waa inuu hal lafdiyo carabiya lama yiraahdo kalaam محمد aatir ali aatir baytun aatir kalaam lama yiraahdo waa in laysi saaray al mufid waa in wax faa'iideeyo qofkii aad u sheegtaa uu wax ka faa'iideeyo oo inta ku qanacdo raba la teegi karo hadii hadal uu yahay oo lagu dhawaaqay una isi saaran yahay fiir labadaas waa la helay laakiin uu san waxba faa'iideeyay qofka marka ku dhawaaqdo uu sii sugaayo u dhagta raaricin leeyahay ii dhamaysir warka waxa weyn kalaam lama yiraahdo qasade bil wad'i arabi wa inuu wax ku faa'iideeyo oo arabu dajiday hadalkaas waa inuu hadal arabu dajiday دي هذا او waxa weeyaan ay barbar dajiyeen ama faransiis dajiyeen uu yahay arabi lama yiraahdo kalaam lama yiraahdo marka intaas matniga way inta la rabo in la fahmo intaas oo sharxa maxamed muxidiin sharxa li aqrayna fiiri hal xaraf waxaan korka uga soo dari mayno
إلا واحد ضروري نقضم معهن فيري وأقول وحن لا يهيري محمد محي الدين قال فيري وشرحها وأقول وحن لا يهيري لللفظ الكلام كلام لفظي معنى يعني لبا معنى أصبنادين أحدهما متكود لغوي ومد لغوي لغة لون نسبية لغة عربية لون نسبية والثاني متكلمات نحوي ومد نحوي لون نسبية وهو كله كلام مركا اللي يراهdo inaad fahanto laba macno waa inaad ka fahantaa mar xagga luqada xal lagu yiraahdaa waa inaad dhankaas ka fahanto marna waa inaad ka fahanto naxwoolaydu kalaam hay u taqaan labadaas inaad soo xifsada laga rabaa ama al-kalam kalam oo ku yiri كلام كأن نحوي نحو لو نسبيي فهو كلام كاسو عبارة كورمد وي عما شيء لغا ورمو تحصل اي كسو حصليده بسبب سببتيس فائده wuxuu ku yiri كلام waxa luqawiyiintu u yaqaanaa wixii faa'iido sababtiis ku imaanaydo sawaa waxa isku miduhu ku yiri akaana noqoyay lafdan dhawaaq oo inta dhawaaqo dadka wax u faa'iideeyay ko am lam yakun ama ma ahanina dhawaaq kal khadi sida qoraalkii oo kale wal kitaabati sida kal khadi sida waxa weeyaan qoraalkii oo kale iyo wal kitaabati waa isku mid ko iyo wal ishaarati oo kaleeto kuwaas oo kale taa la yiraahdaa way halkaas fiiri muxuu waxa weeyaan ku taariifiyay kalaam xagga luqada wuxuu ku taariifiyay wuxuu yiri waa wixii wax ku faa'iideeyay كلام ساسا حق اللقاء اللي يراوي ايش راس وحويان وحا ضروري انا وحير دول استاغن لغه عربيه وفائديه دن كلام لغما يراهدو اصطلاحنا متكلمين تحقودو نحوريده كسو غلا متكلمين او مقصد كيلين تحي اني هدو يراهدان قرانكو كلام الله ما halkaas ka soo galay markaasay marka koobaad ba waxay yiraahdeen kalaam waxa la wixii wax faa'iideey walow yaanba lagu hadli sida ishaarada oo kale sida kitaabada oo kale oo waxay yiraahdeen qof had meel taagan daa tiraahdo ta gacanta saas ku tiraahdo war iga fariiso waxay yiraahdeen kalaam waa luqad carabi saasdarteeda kalaam shardi ma ahayn lagu hadla ee waxa shardiya wixii wax faa'iideey saas uu yiri waa sida mutaaqidiinta dambe oo dhan xawleeyay aad ku arkaydo markay kalaam xagga luqada ku sheegayaan laakiin istilaaxaas mutakallimiin xaggooda uga yimid kalaam lama yiraahdo waxaan lagu dhawaaqin xaraf iyo sawt lahayn culumadii luqawiyiintu horena ma sheegi jirin waxaas dhowr shay aan ku tusaaleynayna ko culumadii hore luqada bal waxaan ka soo qaadayna al-Imam Ibn al-Faris kitaabkiisa la yiraahdo maqaayis luqati arabiyya markuu kalaam qeexayay wuxuu yiri ma yadullu ala nutqin mufhim wuxuu yiri kalaam waxa la yiraahdaa yadullu ala nutqin mufhim waa waxa ku tusa dhawaaq macna fahamsiinay dhawaaq macna fahamsiina ila uu yiri taqulu ala kallamtu ukallimuhu takliman wa huwa kalimi idha kallamaka aw kallamtahu kalaam waxa la yiraahdaa nutqi wax fahamsiinay نطقي وحفامسيني قرآن كريم كان إشارة معناها لغا فهمها إنيسان كلام هينو عدي نبي الله زكريا إلهي وإنا سبحانه وتعالى مركو أغب شاريي إنو عرور هلايو وويل مدعي سيحيا اللي رأو طالي الدونو نبي الله زكريا وحيري إلهي علامة أكو قرط إيشك عرورك إنو على القلي فرحت بدن iyo hilow badan oo qaba inuu calool galay ilaahay calaamad ku gashay qaala aayatuka allah tukallima an-nas 3 layal sawiya ila wuxuu calaamad ku garaydo waa inaadan saddex habeen la hadlin dadka iyo saddexdooda maalmood sida aayada kale suuratu al-imran cadayday saddex habeen iyo saddex maalmood waa inaadan dadka la hadlin oo kalaam wax leeyahay xagaaga ka imaan nabiyullaahi fiiri markaz nabiyullaahi zakariya معنى قلبي سكوسو دحيا ددكنا انو فهمسيو ربا كلامنا لوما اوغولا فخرج على قومه نبي الله زكريا قومكي سكوسو بخ وحي كوسو دحو ربا فوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه وحو اشاري وحوي قلب يا صبح بحال تسبيح صد انو هادلي ما يوايهانه قلب يا صبح بحال تسبيح صد معناها سو كوسو دحي قومكينا او اشاره الهينا قرانكو كو شيغay inuu san kalaam ahayn oo wuxuu saddex maalmood hadli ba meeyid
quraanka sariixiisa marka maxaa kuugu cadaaday ishaarada iyo waxyaalaha kale kalaam lama yiraahdo kalaam waxa la yiraahdaa wixii lagu dhawaaqo luqa arabiyana fasiixana saasa kalaam loo yaqaan culimada muslimiintuna ijmaaci ku soo naqliyeen culimada ijmaaca ku soo naqliday in kalaam la yiraahdo wax xaraf iyo sawt lagu dhawaaqay waxa kamid ah waxa weeyaan aimada ku soo naqliday kalaamka ijmaaca al-imam al-hafid qawam as-sunnah أبي القاسم إسماعيل ابن محمد ابن الفضل التيمي الإصبهاني كتاب كيس الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة وهو كل صنع مجلد كوباته أي كسر نقلنا وهو يرى هذا الكلام وهو وقد أجمع أهل العربية روح يكون إجماعين أن ما عدا الحروف والأصوات وحي كسو هراي حروف اي اصوات ليس بكلام الحقيقة انه يسن كلام هاي حقيقة هان ويكون اجماعين اهل العربية سو ما جيدد كذلك سداسو كاليتو علماء كوريدين سداسو كالي يسو هراي علماء كوريدين سداسو كاليتو ايو سورانا ابو النصر السجسي سداسو كاليتو اصلا اجماع اوغو سو هراي رسالة دي ساليراهدو وحويان رسالة السجسي الى اهل الزبيد اصلا اوغو سو هراي صفحه waxa weyn 82 ha ku soo halkaas marka maxaad ogaatay kalaam waxa la wixii lagu dhawaaqo xaraf iyo sawd wixii aan xaraf iyo sawd lahayn kalaam lama yiraahdo warkan dhahayo kalaam la yiraahdo waxaan xaraf iyo sawd lahayn waa war mutakallimiin warkan dhahayo maaragtay waxa weyn waxaan xaraf iyo sawd lahayn kalaam la yiraahdo wax faa'iideeyo warkaas marka inaad fahanto weeye oo ogaato ka gudu marka maxal shaahidka yagaan u laabanayna وأما الكلام كلام كأن نحوي ذا لون نسبي كلام نحوي محل هذا فلا بد ولا مرمان من أن يجتمع فيه 4 أمور أفر أخرمات إن يكون أنت ولا مرمان أفر أخرمات وحي لقاه لا كلام لي هذا عربي وفرسه نحو ذا محي كلام يقانين أفر شيء وحي لقاه أفر تعدي مد كم كم قيا كلام لبيره أفر توينات ترسطها أو أتفير ذا شيء كست تكون ميزاتان ترى أفر تما لقاه لا بس اللي جميلي فيري فلا بد ولا مرمان كويري من أن يجتمع إنه كل فيه كلام كدحديث 4 أمور أفر أرمات أفر تعيين وهكذا سيكون شيئا وحدوش لقيك شيئا معها ألا ولو كان ورأي أن يكون لفظا وإنه يوحل واقع وحي أن لقود واقين كلام معها وحبها فائدين هذا رماني كو والثاني كاللبات أن يكون مركبا وإنه مركب لبا لفظي عربي والله يسيساري أما كبدا وإنه فيري لبا لفظي عربي والله يسار أما كبدا وإنه هل لفظي هدو يهي وحبين كلام لما يرادو وقيد كي لبات أرنك صدحات وامحي والثالث مدك صدحات أن يكون وإنه يهي مفيدا مد وح فائدين وقفكي أدو الشيكت وحكا فائدين صدح كان أفراد بحوية والرابع كان أفراد أن يكون وإنه يهي موضوعا مثل الدجي بالوضع العربي وهو يندجين عرب لو نسبي وإن عرب يدجي دي كلمة أسل كيدي أفر تصويح لغاية لا كلام ليه هذا أفر تصويح إن أدوس حفتي ذا مسكحة كوها يضا مركي لغو ويدي أتكا جوابتا كلمة دا مكا فيريدا وحانو من كلامة مسمعهم وإن أفر تكفير ذا إلا غاية إنكالي كو أفر تيو مد كو قيحة ومعنى كونه لفظا ومعنى كونه أهان شديس معنيه دو وحوين لفظا ويهي لفظي وإن نقضى صولماتهم أن يكون وإنه يهي صوتا أواق لفظي وحلا لفظي حالي هذا أن يكون وإنه يهي صوتا أواق أواقاصو مشتملا كلانسانيا على بعض الحروف حروفتي قبل كميدا حروفتي الهجائية يكاد نسبي حروف الهجائية حالي ألف با تا ثا جيم كواس على هذا حروف الهجائية دان مغش كواس حروفتي هذا سديد إلا باتنك هذا دور حرف وكميدا وإنه كلانسادو دور حرف وكميدا فيري التي حروفتي كيف بلا جرت حروف الهجائية هرت التي وحروفتي تبتدي كبلا جرت بالالف الف الف با سو الف كمان بلا جرين واتي وتنتهي كل ما جرتي بالياء ياء حروفتي الف كبلا جرتو ياء كل ما جرتي دور حرف وكميدك وحي كلانسدا او لو دواقا ليرada lafd ومثال احمد واي هدا احمد فيري ادو احمد هو كلانسدي كو همسه او هريدا حاء ku xirta ميم دال صد افر حرف او حروف الجاي كميدو كلانسدو وا ku dhawaaq
أحمد أتري خلاص واللفظي ويكتب أو كلا واي يكتب واللمد ودواق كلن صدي أصلا أفر حرف يا كاف يا تاء يا باء سو ما جديد والسعيد أو كلا واللمد واللفظ كلن صدي سين يا عين يا دال وهو كيري فإن كل واحدة متكسطة ومن هذه الكلمات كلموين كان كمدا كلموين كالثلاث أو صدح بقى عند النطق دواق أكتد بها كلمات دسوق دواقة تكون واحد نقول صوتا دواق صوت كاسو مشتملا كلن صدي على 4 أحرف أفر حرف أفر تاس حروفه هجائية حروف تكاد اللون نسبية فالإشارة مثال تصالحان إشارة فالإشارة إشارة مثلا تصالحان ولا جدا لا تسمى لغما مقعابو عند اللغويين علماء اللغويين تأكتوده كلام لغما مقعابو كلام لما يرى إشارة فيري هذا تنابا وركان وورصحس وما جديد عفوا ماشي صح وكان لا واسدري وهاتنا لا تسمى لغما مقعابو كلام عند النحويين اساسا ربا نحوي يكتوده كلام لما يرى نحوله يكتوده لما يرى لغويين نفتوده يكتوده لما يرى هذه سida sawaabka saasay نحوله يكتوده ishaarada kalaam lama yiraahdo qof wax ku ishaarado taagan oo saas ku yiri war naga fariiso kulay gacanta ma u jeedi kor iyo hoos inuu dhigaado soo ma jeedi naga fariiso ula jeeda ha kalaam loo dhiway marka kalaam ma yaqaanin hawleedu ha kalaam loo dhiway waa li adami kooniha ishaarada ahaanshadeedii la waayay sawtan dhawaaq ay noqoto dhawaaqaasoo mushtamilan kulansanaya ala bacd alxuruf xurufti gobol kamid hadda dhawaaq ma soo bixin mogta la kalaamna maxaa la rabay qaydka ugu horeeyay kalaam laga rabo muxuu yahay sawt inuu yahay oo dhowr xaraf kulansanaya ishaaraduna wax sawdaba male qofkii iska aamusan oo xaraf ka soo bixin gacanta ama madaxu ku ishaarin waxba meelun ishaarin waay وإن كانت ولو كانت هباها إشارة تسمى من لغو مقعابه عند اللغويين تأكتوا كلاما هبا لغو مقعابه اللغويين تشيغا وقوا وقوا انضم متأخرين تا إيا متكلمين تا وركا إيكا كينين لغويين تان ضمبوا متأخرين تا أو متكلمين كسو عريقاتي أكون مقعاب إشارة كلام وحوى اللغويين تي هوري كلام وما يقانين إشارة محي لغو مقعابه ينكوان ضمب وحوى إشارة كلام لحصول فائدة سو حسليده بها اشارات كسو حسشي ايغو وحي فائده كسو حسشان كلام اسكلا انها يراهد كوان دم ومعنى كونه halkaas maxaan uga soo baxnaa lafdi maxaa la yiraahdaa hadhow markii lagu weydiiyo lafdi maxaa la yiraahdaa inaad ka jawaabi karto dad ka sii daydo hatta kan soo socdan saad u qabeen wixii lagu shaweynaysan ka faahsan la rabay waaye ومعنى كونه كلام كأهانشديسا معنيه waxa weyn murakaban u yahay soo laguma dhihin waa inuu lafdi yahay hadana waa inuu murakab yahay soo laguma dhihin murakab hada lagu sharaxa wa macna kawni kalaamka ahaanshadiisa murakaban u yahay maxaa loo jeedaa macnahaas wuxuu ku yiri macnahaas waxa weeye an yakuna inuu kalaamku yahay muallafan mid la iskaga keenay min kalimatayn laba kalimo oo akthar wax ka badan murakab marka lagu leeyahay waxa loola jeedaa uu ku yiri kalaamkan inuu yahay laba lafdi ama ka badan mid la iskaga keenay laba lafdi la isku soo dar saasa loola jeedaa inuu murakab ama wax ka badan ولكن مثال نحو محمد مسافر كسفرايا وي محمد وسفرا هذا هو مركب سو ما جيد محمد مسافر ان مركب تاع حاجه توصل محمد اي مسافر سو لبا لفظ ما سو لبا اسل اسكغا كين سو انت محمد لو سو قاد مسافر لو ما داري اي هو مركب الا لبا لفظ لا سكينه كو والعلم علمه نافع ومد وحتراي علمك وحبو ترى النهار تابع لوجه بدبا صبوي سماها طريقه النار تكبر سوسن وحو تري طريقه النار ترى وكو عدينا سي ابو عرب علمك نافع والعلم علمك نافع مد وحتراي وي هذا مركب مطلق العلم نافع واضح معايا العلم كو نافع لا صار اسكو ترى سماها هدي لا اسكو ترى مركب اللي waxa lagu marka waxa la raawixi labo ama ka badan la isaga daree ko ويبلغ وجارة المجتهد قفك الدلالة المجد شرف وجارة خفت دلالة شرف وجارة دو هنا كود دلالة لكن ويجو دو حمان كود دلالة شرف جاري ما قفك هنا كود دلالة لقعد لا يجو علم برشيد على كعبش تاخذ كود دلالة ويبلغ وجارة المجتهد كان دلالة المجد حتى تنمرك مطة مركب واحد حي يبلغ كو المجتهد اللابو المجد السطح على سعر صار يسمى جديد مركب واحد تمر
هذا مركز القوي ده تكرر صار دبعتما ولكل مجتهد قف كستو دلاله نصيبه اسقناده قف كي دلاله نصيبه اون لي وخي uu ku dalaalo waxbu ka gaara Soomaa ولكل مجتهد قف كستو دلاله نصيبه اسقناده هي تنونا مركب متى واحد مركب sababtoo ah لكل كو مجتهد لابو نصيب صدخdaas waa weyn ay iska saaranta mid afraadoodna u jeedina waa ku dhex jira markaan gaarnaan insha Allah tusaaleynayna waaye wal ilmu ilmigu khayru ma wa shayga ugu qayr badan oo tas'a u shaqeeyo tas'a aad u shaqeeyo ilay xagis ilmi waxa ugu qayr badan oo ka shaqeeyo way wal ilmu ilmigi khayru ma shayga ugu qayr badan way oo tas'a aad u saciido u dadaasho ilayhi asaga fiirada kanu marka inuu mashaqeeyo kaaga jira imsu iska saaraya al ilmu ko khayrun labo ma sadih tas'a afar ilayhi shantaas waa inta waaweyno waxa weeyaan qofka aan indhaha lahayn u jeedo ka badanna waa iska saareen oo ilayhi laba iska saaranta ilaa iyo haada iska saaranta tas'aana kelimad kale ku dhex jirta labadaas oo waxa weeyaan qofka aan indhaha lahayn u jeedinna waa ku dhex jiraan ogow laakiin hadhow markay indhuhu ku furmaanaad arkay haday fa kullu ibara kastu yiri fa kullu ibara kasta oo min hadii ibaaraat ibaarooyinkan kamida tusama kalaam lagu magacaabo intaas aan soo sheegnay mid kasta kalaam waa la yiraahdaa maxaa lagu magacaabo كلام حلو معه ويقول فكل عبارة كسته عبارة من هذه العبارات عبارة كان كاملة تسمى كلاما لو مقعابا وكل عبارة كسته ومنها عبارة كلا صور شيء كاملة وامثله دي محمد مسافر والعلم نافع يبلغ المجتهد المجد لكل مجتهد نصيب العلم خير ما تسعى اليه كواسوا وكل عبارة كسته منها امثله كاملة مؤلفة ومثل سكاني من كلمتين لبا كلمه او اكثر wax ka badan laba كلمه مثال سكان محمد المسافر والعلم النافع labadaas la سكان انت kalena waa ka badnaaye wuxuu ku yiri fal كلمه الواحده كليgeeda la tusama lagu magacaabo kalaaman kalaam inta nuxaati naxwalida agtooda ma lagu magacaabo illa idan damma markuu ku darsamo maahane غيرها كلمه غيرkeed ilayha كلمه وين غيرkeed ku soo darsamo ee كلمه kaligeeda ma la yiraahdo laguma magacaabo xawlida agtooda fal كلمه الواحده kaligeeda la tusama laguma magacaabo kalaaman kalaam inta nuxaati xawlida agtooda illa idan damma markuu ku soo darmo maahane غيرها كلمadaas غيرkeed ilayha كلمه markuu soo darmo markaas la dhigi karaa سواء waxa isku mid akaana ahaaye indimaam غيرها غيرkeed ku soo darmida uu ku soo darmayo ilaha kalimadan xaqiiqatan noqoy oo xaqiiqada u jeeda ku soo darmaye wadaalika mithaalki kal amthilati sida waa mithalada asaabiqati soo hormartay am taqdiiran ama taqdiir haye waxa jirta mar lagu leeyahay kalimadan kalimad kale la socota laakiin kalimadii kale macnaheena loo fahmay meesha kama muuqato hada kuwii hore waxay ahaayeen waxa weeyaan caama garatay ah oo qof walba u jeedo laakiin maray taqdiir noqay marka waa isku mid wada kama ida qala laka hadii uu ku yiraahdo kale weey ayadoo marka waad soo aragtay iyadoo uu si oo ayaan oo loo jeedo ay kelimad kale u soo darantay waxa hadda lagu tusaa kalimadan kelimad kale la socota laakiin hadda isha loogama jeedo laakiin macnaheena loo fahmaa wuu yiri kama ida qala laka hadii ku yiraahdo kale weey qaa'ilun mid hadlaya man akhuka wa kuma walaalka من واكما أخوك ولا الكأوكي فتقول على محمد ويه فيري محمد هذا الكلام هسي كلام كنت مركب ما هو هاللفظي ما لفظي كلام لا صعد لفظي كلام لا صعد معناها لفظي كلام ماشي وجهه وكل فهذه تن ومحمد كل إشارة فهذه الكلمة كلمات دام تعتبر وحا الله أكا الله قيمينه كلام إنه ساس الله اعتبارنا وحا نقول إيه كلام وحا نقول من أخوك يا ولالك هذيك أهرت أي مركز على محمد هو كلام هو سيكون غطاء محلة فيه ميت كلام ماشي كل حجرت هذيك ما ينعض لعبة وهو كويري لأن التقدير توحوي محمد أخي محمد هو ولالك أيوة مركز أخي ده كان لقى فهم يا كان لقى فهم كلمة هراء لقى فهم صغير اللي مسوي شيء أخوك سوق مجري من أخوك إيه أخاك سألك سوى فهم مركز سألك سوى فهم لأن التقدير وحكوير محمد أخي ولا كيوا ساسا كلوا فهي مركة كلمة دام أو محمد
في التقدير حق تقديرته عبارة وحي كدغنتahay مؤلفة مثل اسكغا كيني من 3 كلمات 3 كلمه او 3 هده qofkii in dhool uma jeedi karo muhammadun iyo akhi ulay in dhool uma jeedi karo qof in dhool uma jeedi karo laakiin qofkii ajruu yaqaan in dhool waa u jeedi kara waa jeedi kara muhammad waa kalimad akhna waa kalimo yaada kaligeedo akhi yaadaas kalimad kala akhi yaada u jeeda waa kalimad kaligeedo madax banaan hada markaad meesheeda tagtaad arkay hada aad ugu jeedi laakiin hadda marka koobaad waxa isku dhimi ararki doonay in dhayarate wuxuu ku yiri marka fiiri فهي وحو يري كلمه محمد الله هاي في التقدير حق تقديرته عباره وحي كدغنتو waxa weeyaan loo ictibaarina mu'allafatu mid la saakeen mid 3 كلمات halkaasna maxaan uga soo gudubnay murakkab maxalida murakkab maanta kadib qofha weydin waa inaad fahantaa wa macna kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda waxa weeyaan mufiidan u yahay mufiid waa inuu noqdo soo laguma dhihin أن يحصل وإن وناكسنادو سكوت المتكلم قفكي هدلاي آموس كيسا عليه كلامك أكو آموس كارو بحيث ميلنا أكو آموس كارو لا يبقى السامع كي بغي سنايي أوصن كباقي أهانين منتظرا متسوغايا لشيء آخر شيء كاي هدلو هذا مفيد حالي هذا وإن الضابط كان حفظ ده أن يحصل سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر وحيكو المفيد حالي هذا المركات شيكتو lagu aad ku aamusi karto kii ku dhageysanayna uu san wax kale ka sugay oo hadal faa'iido leh meel lagu jooji karo uu hal faa'iido oo wax faa'iidi karo zaas ala ku bufiid wuxuu ku rifaa qota da tiraahdo ida hadara al ustaad markii macallinku yimaado kalaam lama dhigi karo hada dan dalkan soo istaagtaa tiraahdo ida hadara al ustaad markii macallinku yimaado oo iska dhaqaajida ka war wala yaab xal leeyahay حاد دعي هدي معلم كيماد حاد دعي هدي معلم كيماد هذا الفائده اللي ما ميل لو جوج كلام marka ma وانا فيري لفظي وايه سوما لفظي ما يهرت اذا حضر الاستاذ لفظي وايه معايا لفظي ودواق حروف كل صدي سوما وايه كو مركب ما مركب وايه معايا اذا يحضر الاستاذ اسك ساري لكن maxaa ka maqan faa'iidada ka maqan كلام marka ma كلام ما لا يسمى لغما magacaabo ku ridaalika ka soo kale كلام وحاد علومه ولو قر أنه أصل لفظ دواق وياه أو حروف وإسك سارين كو لفظ قاسو وليبا مركب ليس صار من 3 كلمات 6 كلمة ليس كسارين أصغر لفظ مركب معه هذا الكلام لما يرى صارت قال لي أن المخاطبة كان لها هطلع ينتظر وحسوجه ما تقوله واحد ليه بعد هذا كلام كان كقضاء إذا حضر الأستاذ أنت واحد كذا بيت وكسوجه أو واحد بعد ضرب بالمركب أستاذ كيما لأن المخاطبة كان لها هطلع ينتظر وحسوجه ما تقوله واحد ليه بعد هذا كلام كان كقدال او مما شيء يترتب كدلما يكرتب ميا على حضور الاستاذ معلمك اماتنكيس فاذا قلت هذا تراهدو اذا حضر الاستاذ معلمكم مركو يمادو انصت التلاميذ ارضا امصايا صار كلام نقرا هل وحلات فائده وميل ادغنا هذلك ku jooji karto kii ku dhageysanayna uu san wax kale ka sugayno hadalkii uu faa'iido ka helay oo meel uu wax ka faa'iido ee tahay saara wuxuu noqonaa kalaam muxuu kalaamu noqonaa wal husul alfaa'idati faa'iidada soo xasile faa'iidada soo xasile wa macna kownihi ahanshadiisa macnaheedu waxa weeye wa macna kownihi kalaamka ahanshadiisa macnaheedu waxa weeye mawduucan uu yahay waxaan ka soo baxnay mufiid maxalida saas uga soo baxnay wa macna kownihi كلام كهانشدي سمعنيه ده waxa weyn موضوعا mid la dejiyo yahay bil wad' al arabiyya dejin arab loo nisbeeyay maxaa loo jeedaa an takuna al alfaad wa inay tahay alfaad al mustacmalatu loo isticmaala fil kalaam hadalka wa inay kamid tahay min al alfaadi allati alfaadi wada'atha ay dejiday al arab alfaad adeegsaday wa inay tahay alfaad arab dejiday oo waliba lidalaalati inay tustana u dejiday ala macno min al macaanida kamida alfaad dad ku hadlayda waa inay tahay alfaad arab u dejiday inay tusto macno macaanida kamida مثلا تصالحان حضر لفظها كلمة وي كلمة وضعها أي دجري العرب لمعنى معنى يدجري ومعناها سحوية وهو معناها يدجري وحوين حصول الحضور إمات إنه صح حصله إمات إن لهرو
في الزمان ولبا وقتنا وصو حصل وقت قاص الماضي تغي او حضر الاستاذ دي ليرادو معلمكي وايمد وقت هورو يميدبا وايمد مر هورو بين marka waxay u dajiday حصول الحضور إماتن إنه صو حصله في الزمان الماضي وقت تغي نو صو حصله وكلمة محمد عربي دجيده محمد دجيده قد وضعها العرب عربي دجيده اللي معنى يدجيده معنى يدجيده محوي اللفظ وهو معنى يدجيده waxa weey daato shakhsi qofka daatadiis qofka al-musamma lagu magacaabayo bihada al-ism magacaan waxa weey محمد عربtu waxay u dajiday inuu tuso daata lagu magacaabayo taasi u dajiday وكاسا وقول فإذا قلت هذا ترى مركا حضر محمد يمد فيري تكون وحي نقيدا مركا عفوا تكون أضوب واحد نقيدا عنده واحد نقيدا قد استعملت إن استعمال شيء كلمتين لبا كلمة لبدا كلمة كل متكستو منهم اللي بدو ذا كمدا مما شيء كمدي هي وضعه العرب عرب أي دجري هذا ترى حضر محمد waxaad adigu noqonay qofkaaga ku hadlay inaad isticmaashay laba kelimo oo mid kastaba carab u dajiday بخلاف ما إذا تكلمت أرن وذلك سوق الدرو أرن كاسو حاصل وحكو ثابت وحكو سمية ما حاصل كو حاصلها بخلاف ما شيء خلاف كيس إذا تكلمت هذا هذا شو بكلام هذا الكون مما كي كمدا وضعه أي دجيين العجم عجم أي دجيين كالفروس سيدا إيران وكلا هذا الكيدي وأتكو هذا فرس وات يمكن يدقي جري إيران تاس يقول كاسوي وعجمي مقت إيران طيب فهذين عرب كواسو كله وا إيه وتركي هذا الدجيات كوارش تركي عاص هذا الدجيات كوارش تركي وعجمي إيه والبربر قبيلة عن بربر هو وحوين وحي دقيقين ودن كان وحي كميدي اللي يرهدو إن الجيريا قبائل كدين قبيلة كميدوا بربر سو ما جديد والفرنش قال كان فرنسيس كان بكو هادلي فرنشي قال لي فرنش هذا ما شو فرنسيس هذا بكو هادلي وحاسه تدكو شاد وركاس عجمي يدجي فروس وعجمي تركي وعجمي بربر وقبيلات وعجمي فرنشي فرنسيس كانوا وعجمي وحاسه تدكو هادشو كلام لما دي كرو وحو كو يري وذلك أنا كاس حاصل وكو حاصل بخلاف ما شيء خلاف كيسه إذا تكلمت تدكو هادشو بكلام هذا القوم مما كي كميدا وضعه أي دجين على العجم وذلك مثالك كالفروس سيد إيران تاسو كان نو سو قبو وتركي إلا يدا كميدا فروسكي وايه وتركي وكله هذا دجين والبربري بربر قبيله اللي هذا اللي دجيدي بربرهذا maahan waa barbar kaas waay barbarada hamoodi waa qabiilo aljeeriya degta فإنه هذا الكاس أي دجين قبائل كاس أن سو شيغني لا يسمى لغما مغعابو في عرف علماء العربية علماء العربية عرفigooda كلام لما يرهدو waxa كلام loo dhiiwaa waa هذا الكاس قبائل كاس ku hadlaan iyo dawladahaas وإن سماه هبكم مغعابين أهل اللغة الأخرى اللغة كلا dadka iskale كلام هبكم مغعابين لكن كلام لما يرهدو sababtoo هذا العربيات معها وايه أمثلة مثاله سولي الكلام كلام سقنادي كلام كاسو المستوفي أوفصدي الشروط دي هذا وحو تصالينا مثاله أوفصدي شروط أفرطاه مثاله أو كلام أوفصدي شروط الجو هودي صح وبنايه هودي ضرور مال واحد ضرورة مال وبنانت حتى هو كلام صوت أفرتي شدي ملقاله الجو صح ولا كو لفظ وايين ولا قول واقع كو مركب نوايه لبا لفظ لا اسك صار هاي مفيد نوايه هودي بنانتان اوغان ايسن ضرور لاين هاي عربي نوايه عربي دجيدي سو افرتي لغا هدي البستان بيرتي مثمر مرو بخنا هاي وكلام افرتي لغا هلا ادو كفير دانتي ور كو شيغ بدغولات الهلال بشي صادع وكرنق وديرادو هاي كاس كرو استاغ بير كو السماء إركي صافية ومت بنان انطرور كسوكي يضيء القمر ضيحوه افتيميا ليلا هبين كل واحد نوع ولا كلام صماها أفرت شدم لقاها ينجحوا ويقوليسان امتحانك واكو باسا المجتهد غفك الدلالة لا يفلح مقوليستو الكسور وهسلو ضغن وهسلو او قرده كدالة او عاجزلو نحونا ما برتو اجروميك واحد dadka kala ku barto waa la weeshada waqtan ajrumiga dadka soo fariista qofna waa lagu bartaa qofna waa bartaa hal kaliya wax lama bari karo moogta hal qof haduu ku yimid wax ma bari kartid
وإن شن أو وحبرين الله فردو أو وهشدو كل عيشدو هل كم ده صباحا كوان مدوق كهارن باب معرفة علامات الإعراب متكلم باب الأفعال وكاغهارن متكلم باب الفاعل وكريبي خلاص مت كان مهم قال رأي الله صار كل يجوا حلام بركة وهلي ونقرن marka wehsilo oo dadka wehel u ah kaas wax ma barto marka adu waxa noqon kii wax lagu baranayo kii wax baranayo noqon la ilaha illa haq lagu caabudo ma jiro illa allah allah maana waa kalaam mufiid huwa muhammad safwatul mursalin inti la soo diray rusushii la soo diray xulkoodi waa allah alla rabbuna wa rabbigeen waa kalaam muhammad nabiyuna wa nabigeeni sallallahu alayhi wa sallam waa kalaam وحصل هو وذا كلام إلا أفرتي على جهل مد كسر كمير أفرتي قيد على جهل أمثلة مثال أمثلة ذا سول اللفظ أصلا المفرد الكلية لفظ مفرد وين فانت معك مفرد محلي وكان فيري محمد علي إبراهيم قام من وحصل كلام لميدا محلي هذا كلمة علي هذا فيري ها محمد ومجا علي ومجا إبراهيم ومجا قام وفعل من واسم ها من أكف يعني دين ويراد من يدقى من توافع عن الحرف يبان نقي مكاسي من توافع عن تاسع الرب من أفع عن مركب محين نقي فيري وعم مثالي اسم نواب مثالي فعل نواب مثالي حرف عن مثالي تاسع فعن هاي وحن مثالين حطنا أمثله أو مركبة كلام معنا هاي وقول أمثلة مثال ذا صول للمركب مركب صغناضي مركب كاسو غير المفيد هين مدينة اسكندرية وكير مقالة اسكندرية فيني مدينة ولفظي الاسكندرية ولفظي كله ومركب لبا لفظي وحل يرى تركيب إضافي على الكليرة كاسو كله ولا يسوي إضافي اسكندرية ومقالة مصر كطالة مصر مقالة كطالة ليرى اسكندرية عبد الله وتركيب إضافي يسوي جديد عبدي يا الله يا لسكتي عبد الله هذا الكلام معه فيني لفظي واي مركب نواي ولا بعربي نواي هذا الكلام معه ما عاد هو الكلام اللي نقوله فايدة دي معه هذا قفلك أنت سويت أقول هذا مدينة اسكندرية كورم قاسوا اسكتك حد كفاية هذا مقالة شيكت وأنا مغلي جروران هرتان مغلي جريه مقالة اسكندرية حد كشيكت مقالة دي مجبت ما بسنت ما حكى بعد كلام ما أما أنت اللي سويت أقول عبد الله مركي كلام ما حالي بفايدة مرة أما أنت اللي سويت أقول حطر موت وكذا حطر موت حطر الموت وقرنا ومقالة ناس يمن كنت الله وفهم حات فائدين كلام ما هالمركز وأنا مركب ده وتركيب كمسكي قبل ليرة ولا بكلمة أنت لا يسكت ضري هالكلمة اللي قديه حضرة يموت على يسكت ضر مركز المقالة ما على قديه تركيب كاس كل حل هذا تركيب مسكية ولا بكلمة أنت لا يسكت ضري هال شيء ما على قديه كي ورا نحوها تركيب إضافي هي هذا يسكت خالدنا له مركز أمام ميدا ويري لو أنصف الناس وردتك هذه عدالة سمايلها هي حادئ لها لو أو حرفة إيه أنصف أو فعلة إيه الناس أو اسمه صدح راسه إسكا صارته مركب واتاي لفظ واتاي عربي واتاي كلام ما حيقول نقوي هي كلام نقوي مفيد يصير هاي أما سوي أنت كوي مدوه كوي إذا جاء الشتاء قبوبه مركوي ماده وير إذا جاء مركوي ماده الشتاء قبوبه حقاق مرك هي إذا واسم جاء وفعل الشتاء وحويان واسم صدح إسكا صارنتي لفظ واتاي مركب واتاي عربي واتاي هذا الكلام معها محيل النقوة دي مفيد سنين وقولي مهما أخفى مهما شيء كستا أو أخفى أو قريو المرائي استسلوغا متك ضدك استستصا وحكستو قريو وير كاسو اسكا عاموس كلام ما هاي ما يستر إنه جوابته قدر على الربي ولا هذا يعلمي ولا أكاد دونا أما خطري أما يقارن إنه يراد الربي ما وصلني صمان كلام ما ويقول مهما شيء كستو أقفل مرائي استسلوغ أو قريو متك ضدك استستصا وان إلهي عابد انترتيس أما سوى كل إن ضلعت الشمس قرع ضادي صواب بحضوين إن وحرف ضلع وفعل تأض وحرف الشمس واسم ما يقوز كسارين لفظ وايهي مركب وايهي عربي وايهي لكن هذا ما أهان وحوين كلام سببته أم مفيد صنعين هذا السؤال أن يتكسر جوابته لك الربع أسئلة على ما تقدمه سؤاله وحي صهر من اللي سوي الديني لازم أن يتكسر جوابته بريوح على الربع أنها تصير فتحدث كسر جوابته ما هو الكلام كلام محل هذا وين كسر جوابته ما معنى كونه أنشدي سمعني ذو محيطه لفظ وياه لفظ محيطه وين كسر جوابته لقاك جواب ما حي الحد كشغينا دي لقاك جواب ما معنى كونه أنشدي سمعني ذو محيطه مفيد وياه كو
سؤال كلام حلقة ربا ما معنى كونه مركب إنه يمعنيه محيط ما معنى كونه أنشدي سمعنيه محيط موضوعا مثل تجوي بالوضع العربي دجين أو عرب له نسبي هاي مثل سو مثالي بخمسة أمثلة شن مثال شن تصل لما شيء أسقنا هذا يسمى اللغة مقعابه عند النحاة نحو وليد أكتوده كلاما انت صار قرب بري هلكا سنسوي جوجين والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد